هبو اي امس هبو يسكاغاجي لا اله الا الله شقيسو انا كل شوقي امس يسكاغاجي ها اوين دي هبو اي امس دي اوين تسكا جوج شاي وين جاب فيك قصب توفر من جميل قصب واي تنير الباب كان كهر اركيدو اويسا oo maxay la ooyaysaa wala gudi doonayo oo soo baxsatay maxaa tiri la gudaa hal la gudaday danteeda ku jirta maaha oo kaalay danteedu waa inay xanuunsataa danteedu ma inay curyaantaa diinteenana amartay de ma ogtahay saameynta iyo khatarta uu arrinkaasi ku yeelan karayo nafteeda hindi ma ogtahay inta hablood naftooda ku waayay miskiintan jarha ka tuurina diinteenana amartay diinteenana amartay daliil ma haysaa may laakiin dhaqankeenu noona amray ma jeclaan lahayd in xubin jirkaaga ka mida lagaa jaro may ka fikir bal farahan ajaadka ku cunisid haddii lagaa gooyo waa xanuuno badan buu u keenaa ma jeclaan lahayd in ilkaha ajaadka ku cunisid dhulka lagaa dhigo way u curyaamaan haddaba ogow adigu ilkaha iyo faraha u dhiman maysid laakiin iyada xubintaa yara laga jarayo waa waxay u dhiman karayso dalmadan wuu ku adkeeyaa adeero iisa maxaan kuu gafay ogow intaad aqalkeena joogtid inuu qofna kuu imanin uu qasab kuu kaxaynin ilaahay buu leeyahay ka aqalkayga intuu igu imaado gabadha yar soo saar iga ila dagar baan ka aqaanaa yurubi intigiisu markii imaadaanay gabadha yar qaadan doonayaan albaabka isku daba khabee aniga ay isuu dhexgelin dhigaha anaa dilaacinaya way ba ayay daawaciday la hadlaysa feerahaaga weli muraayad ma hor joojisay habo odagayga iyo walaalkay wax ka adag ilaahay mu abuuray dhigaysa hadaba aniga arrinkan adi uu kaawan yahay salonga iska fariiso buskudkaaga iska cun intaan anigu iyaga karbaashay war calool weyn baa kaa soo horeysay maxaa iska celin karaysaa calooshade six bag baa leeyahay adu two bag ilaahay baa ma hadle oo laba libaax dhex dhigay yaraantii intaan nin ku dhagaroobi gaaray horta ma kuu sheegay waa laba geesi oo dhaartay adu ku dhagaroobi gaadhima anu waan ku dhagaroobay haye dhagar qabay ordo horta inka albaabka naga soo eeg kolkol waxaan ka baqaa inay dhagaroobaan markay sidaa ii soo hor joogsadaanba nash kolleyba mid buuran ba ku jiri doona ma kaa ani iida adu iyaarka yar la boodbood markaga siin albaabka soo eeg ninkaygu sabaaxadu xariifee kung fuugu ciyaari jiray waa ciyaaraysaa kung fuuga aniga liguma gaaraba halkaa baan ka laagi doonaa walaalkayna waa aabbaha farfaarka alla gacanta xaraara iga haysa dagaal goorma igu dambeysay iga daya maanta inaan dhagaroobaan ka baqaya dee dhagartii haddii iyaduba noo imanayso na soo doonanayso anagu maxaan samayn karaynaa albaabkaa la garaacaya amrin waa lagu doonaya waayo waa inama asxaabtaada من الله ونعم الوكيل ورجوك برتا أكيد دقاقين واقص شيء واسكا سعونس نحشوني سيد مركا كوباد هرتو waxaa rajeenaya in xalqada maanta aad ka hesheen ood ku mabsuudeen ood ku jibooteen ood ku khalkhasheen ood ku dawaqdeen ood ku mirqaanteen ay bas danaga aamus ayoon ilmuhu waalana haddaba muhiimaddu inta qosolun lagu joojiyo maahe walaalayaal waa inaan isbaraarujino oon cilmi iswadaarsan waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu talagalnay in aynu ka difaacno hablaheena falalka foosha xun loo geysanayo
waxaynu ku soo aragnay xalqadaheenii hore aanba isku soo weydaarsanay cilmi badan oo ku saabsan gudniinta hablaha ra'yigii ay diinteenu ka qabtay falkan foosha xun leh kaalintay ka qaateen macooyooyinkeenu la dagaalanka falkan foosha xun leh kaalintii ay ka qaateen raggu la dagaalanka falkan foosha xun leh sida xeerkeenu ugu ganaaxayo falkan foosha xun leh intaa iyo wax kaloo fara badan haddaba walaalayaal ogaada waxa aanu soo wada faa'iidaysanay waxba inooguma yeelan haddii aan la aamusnaano oo anakun ay nagu ekaato muhiimaddu waxa ay tahay in cilmiga aan kala faa'iidaysanay aan sii gudbino oo anakuna aynu ku dhaqanno haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oon ilaashano hablaheena